وسلم رمضان كريم إلهي ما الله سبحانه وتعالى waxaan jeclahay inaan dhowr arrimood ka hadlo oo hadda arrimaha dalkeena ka taagan ayaan jeclahay marka hoos waxaan ka hadlayaa shirka ka dhamaaday shalay Baydhabo ay maamulka isku yimaadeen Muqdisho iyo maamul goboleedada Soomaaliya anigu in badan baan sheego inay warramaan dagaalkani waxay nagu wadaan maamulka Muqdisho ee farmaajo taasna way soo cadaatay shalayto waa aragteen waxa la yiri qodobo ka soo baxay waxa kamid ahaa in hub la siiyo magaalada ay qoladan shirkii Garowe iyo Boosaaso degan in hub la siiyo oo kula dagaalamaan waxay u yeelaan argagixisada hubkaasi waxa loo siinayaa waxa weeye inay naga nagala dagaalamo argagixiso meesha ka jirta ma jirto kuwii hore markii horena waxay dadka masaakiinta reer dig iyo milfla ee Boosaaso u soo shaqo doontay bacdayaasha ku haysta ayay inta kulba qabtan yiraahdaan shabaab baanu qabano online horena waa kuwii galmudug ciidamada Mareykanka ku soo hogaamiyay dhowr iyo 10kii loogu soo tababaray magaranaysa bali dooglis ay la dagaalamaan dhalinyarada shabaab ay argagixiso ku sheegeen ay ku laayeen waxa weeye waxay caadaysteen beeshaasi inay ka macaashaan beentooda burcad badeedka iyaga sameeyay oo magaalada ilaa Garowe waxay ka sameeysan lacagtii burcad badeedka waa nimanka ka suurta gashay inay burcadada sameeyaan inay ilaahan waa la dagaalameena oo lacag lagu siiyo in maxaabiistoodii la soo qabtay ilaahan anaga hayn ee lacag lagu siiyo gan lacag sameeyay inta sessions laga soo kaxeeyay waxa weeye shirka shalay soo dhacay wuxuu inagu qasbiya hadana reer Soomaaliland inaynu xoogina saarno seen ciidankan u islayn ee midnimadeena waxa socota in xasuuqi eerkii inagu soo celiyo ayaa way qorshaak socda farmaajo maamulkiis u wada qoladana la soo adeegsanayaan jaarka nahay waxay ka hadlaan Soomaaliyeed ba ka hadlaan Soomaalina bay ka hadlaan toddobaadka waa dhalinyaro baa heedeen markii aynu dagaalka la galnay Ethiopia waxa dagaalka dhicisay waxay ahaayeen beeshaas saraakiisha ku jirtay oo inuu ku sii jeedna cadowga Ethiopia la dagaalamana inqilaabka ku dhex sameeyay lixda sarkaal si la isku laayo oo dawladda lagu kaco lixda sarkaal inta loo yeeray la dilay oo ninkii cirra dilay inqilaabka sameeyay waa nimanka inta soo ururiyeen la yidhi urur kastaba inta wanaagsan soo saara ee Soomaali u fiicna la soo saaray ee la moodiyay inay sameeyaan darajo la laayay Soomaalidu horta ka sii taagay reer ahaan bay sheegayaan Maxamed Siyaad Barre ayuu ahaa inqilaabka ku sameeyay Maxamed Cumar Jees Axmed Cumar Jees Kismaayo yaa kula dagaalamay Barre Riyaale yaa Kismaayo kula dagaalamay yaa bilshamka Kismaayo keenay iyaga keenay horta Soomaalinimo iyo reer ahaan ku jirta ma jirto waa dantooda maantana qaska ka taagan Soomaaliya iyaga sameeyay qaybiyay road mapka iyaga sameeyay Garowe iyo Garowe tubalayla in Soomaaliya la qorbo oo dawladaha jaarna ka sameystaan buffer zones saani Soomaaliya isku iman waxa weeye arinta tukara anigu nabad baan ka rabnaa maanta waxa laga hadlayaa baa layidhi Sool United Security Council yaa geeyay arinta yar Sool ka Security Council iyaga geeyay waxa cadaatay in hadda ay dalkii Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen Abdiweli ku dhigay iyo farmaajo ay ku dhigeen waxaad ka garanaysaa shanta dowlad goboleed waxa gudoomiye u ah Abdiweli madaxweynaha Soomaaliya maamulka Muqdishona waa farmaajo
waxaanu sheegaynaa xaaf hubkaa shalay saseexday adun baa lagula dagaalamaya anagu waa iska celin karnaa laakiin gaalka ayuunbuu ka bilaabay dagaalku hubka la siin doono waa hub lagu Soomaali lagu qasiyo anaguna waxaan xaq u leenahay meel kasta oo hub ka helayno qaadano hub doono waxaan ka jeclahay ka helo $1 milyan halka $1 milyan horta lacagtaasi ma lacag ayna siiyo farmaajo waa lacagta magaca Soomaali lagu qaato abaaraha lacag baa lagu bixiyaa adduunku soo bixiyaa magacaas iyaga la soo mariyaa duufaanada lacag baa lagu bixiyaa laakiin waxayna tusaysaa cadaawada reerkaasi dadka u qabaan milyankii waxay ka sameeyeen waxaa intaa ka daran ardayda kale wax jaamacadda Amuud ku jirta 200 way ka badan ilaa 500 qof ee deegaanka ka soo jeeda reeraha degan Boorame ee deegaankaas ka jira way ka badan yihiin malaha inaga reer Hargeysa Boorame ka degan wada arkaysan marka taas waxaan tusiyaa qoyada reer Awdal cadaawadu inaanay ku koobnaan cid qoray inagu wada koobnaan reer Soomaaliland arinta ceelo fiiman ka hadlay waxaan taariikhinayaa dadka xabad joojin sameeyay waxaan taariikhinayaa garaad jaamac garaad Ismaaciil garaadku waa ka nabadda ka shaqeynaya aydi Soomaali meel joogto garaad baan wax nin macawis inta xaga camaamad yar saartay marmarkii islaanta marida islaan xaaskiisa soo qaatay idin waxaan caaqiliyo iyo suldaan wax laga garanaya amalkiisa laga garanaya raga xabad joojin sameeyay waa taageerina waa wanaajina waa ahmaryanina raga dabka shidiya ku hadlaya TV-da ka hadlaya kicinaya qasiya nabadda ay isku sheegaya dhaqameed ogaan dhaqameed dawladdu waa inay soo qabataa baleen fidnimada dadka waa inay soo qabtaa kuwa ka soo hariya dibadda ka soo hadlaya waa in taswiirahooda iyo magacyadooda eerboorada la dhigaa baaleen waa in dawladdu shaqaysaa oo sharcigu shaqeeya ragga shalay ka hadlaya doorada ka hadlaya ee dadka maatida isku dilay waa in la soo qabtaa sharciga la hor keenaa baaleen taas waxaan leenahay reer Soomaaliland ciid wanaagsan bay shaqo heli doontaan ciidamadayna geesiyada xaq u dirarka ana waxaan balyanina seexan fiojignaada ma leenahay waxaan leeyahay camayna waxaan leeyahay yaan dagaalka kaliya laga bixin dagaalka waan naqaana ay dhacday hore u dhacday maxamed siyaad barnaamijkii uu soo rogaal xiriyay leeyay rogaal soo rogaal xiriyay wixii dacwo ogeyd halka qolada sarka ka baxsadeen way ogeydeen waxaan leenahay dadka reer Laascaanood iyo buuhda degana dad la guumaysto way ka sharaf weeyeen aragii daraawiishti iyagii daraawiishta u baba dhigay buu ahaay Soomaali u baba dhintay daraawiishta Ingiriiska reer ku badnaa buu markii daraawiishu jabtay intii beesha ka tirsaneed ee ku qaxday Boosaaso iyo Garowe eeriyadaasi halka ku dambeeyeen taariikhda dib u arka intii Soomaali ku soo qaxdayna waa kuwa wada madaxda ah inaan Salmaan Dafle ka mid yahay المحاج نور كمدي هبل كسائق رجل صاقع هاي ملك يعني إنه عمر هو ندين أنا لا هاي محمد سال براوي حيري ما شهرت هو وريري بيوريري واحد على لها إنه واحد لا حكورات هدو كنت كوجرا كوم يلبوكها غنيني كوم يلبوكها غنيني وريري أنا معوس قد لي دونا إن شاء الله تعالى هداني جوسين نو نبت بان دوننا مدر بان دوننا تذكر صومالي هالكاد دقن nabad baan rabnaa laakiin waxbaan iska celina dadka ma doondoon laakiin waxaan leeyahay reer Muqdisho hubka la bixinayo aan masoo kale sheegiyo cawaaqibadooda idinku damayn doonta sida idinku sanad joogin guriga la idinku garaacay ee qaybid aydiin abdi qaybi la dili gaaray ee Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur lagu 6 qof reerkiisa horsooda lagu dilay waa wake up call baan leeyahay محمودين سومان نقرأ القصص وما سنتين هذه ما سنتين وما حلاها صحافة دين الدجال كميديا بالعمل ما عليك سوارك كان هو سوار لي بالعمل عيتم يعني أنت تعيه وأنا دوجي سان دتكينا من مدو تكشقيسان دفاع قنا كشقيسان الحينه
labadii jeer horeba saraakiisha way isqabsadeen saraakiisha waxay yidhahen waxaan gelinaa garoowe no buu yidhi ballanta waxaan qaaday inaanan tuqara dhaafin aanan qaabin laakiin doorkan waxaan filaya hadday soo turturaan inaanay noodi soconin ay tashan doonaan dadka reer garoowe waxaan leenahay nabadde maydu qaxin idinku dadkani way qaxeen dhulkooda waa la baabiiyey qaxoonka way garanayaan nabadda xejistaa leenahay dhibinta xejista yaanu cabdiweli iskaga ciyaarin oo maraykan daara ka dhistay lacagtii puntland oo dhan magaceeda ku soo qaatay xagee martay xagee isxisaabiya ciidamadeeda waa arkaysaa reerkan usoo gacan raagaysiday maganaysaa dhulbahantaana reer magan idiin noqon kara maaha dayr sarkaalkii dayr korneelkii reer hargeysa ee ahaa taliya ku-xigeenka daraawiishta maamulkaasi darxumada haystadu ka sheekeyn waa arkaysa dayr ba ahayn kari weydeen dhulbahanta o dhan ba ahayn karta ha iska daadin caanaha ha iska daadin caanaha ha iska daadin dumarkiinu yaan idin waalin dumarku yaana idin waalin idin waalin baa le tala dumar gashay ya laguma baraaro laguma guuleysto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu marka halka waxaan kuli milyanka waa milyankan sheegayo lacagta waa lacagtiis magaca soomaaliya lagu soo qaatay jeebka magaaladaas caabi waaqna kamuu keenin farmaajona uguma dhiman waa lacagtii magaca soomaaliyeed oon siinna hala siiyo dadka hala gaarsiiyo laakiin wax aabaa lagu qabna waa waraabo ciidna ho qabin adna ha u tuurin xaq baad u leedahay taas weeye tan ay isqabsanay da waa reeraa isqabsado intii isaa qeyb joogtay halkaas ka tagana way fiicanya de kuwii kale markay hadleen ayaguna ka daba hadleen taas waxay ku tursaysaa de inaan magaranaysaay sooliya sanaag inaan horta reer qura wada lahayn sooliya sanaagna dee maaha juubooyinkaa la qabsaday maahe sooliya juba hadduu imaka waxay wadan socdaan jubana waa dadkii lahaa waa kusoo noqon doonta dadkii lahaa ee dusha laga fuulay ee dig iyo midhifle ya iyo dadkii kale ayuunba qabsan doona marka waxaan leenahay axmed madoobow cabdiweliow limin baa haysataan liminta iska khasaarina win position baad joogtaan ee joojiya waa leenahay dagaal soomaaliyeed ya loo baane oo 90gii weli waa jiraa qaxoontigii weli wuu joogaa dhadhaab intii maraykanku qaaday maahaan la daadguriyey maahaane weli way joogaan marka waxaan leeyahay dagaal ku baaqeen soomaaliya nolol bay u baahan tahay caafimaad bay u baahan tahay horumar bay u baahan tahay magaceeda sharaftiina soo celisaa bay u baahan tahay laakiin cabdiweli inaad dhiigga soomaaliya aad ku urursatid marata waa pirates matana waa argagixiso oo masaakiinta dhigiya midfaka tusbaxaya iibiya iyo kitaabka iyo ajuuraanka masaakiinta ay kuusoo shaqo tegay ina qabqabato tala waan toogtay waan soo qabtay aakhiro ilaahay subxaana watacaala uu ku arkay laakiin somaliland way taqaansa wax iska dacday dadka reer somaliya iskumana diri kartid reer sool iyo reer buuhoole iskuma diri kartid reer somaliland anaga iska keen xigna anaga isdhalay anaga isu dhaqana anaga isu afa ari iyo ari baa kala jiraan waxaan leeyahay yaan soomaali qasin soomaaliya nabadgelyo u baahantay somaliland waxay joogtay warqadii gohomka hada lagu tiriyay xamar ama soomaaliya ilaa haddana dowladda kamay hadan sababta u joogtay dad badan baa ku tegi jiray dhakhaatiir u tegi jiray hawlo kala shaqo tegi jiray arrintaasi dadka garow way ka dhoofayaan oo dhaqaalo badan baa halkaa maamulka puntland ka soo gala balka xisbi ahaan soo aragta arrinta maalootan madaxweyne ula tegay ma ogtahay oo arrinta codkaas kala maqanay waa la yidhi wax iska bedelay ma jira gohomta way jirtaa nimankii reer soomaaliya de iska soo degi jiray halkan baa baasaboorradii soo qaatay wuxuu noqsay weliba staticska inta dhooftay wax iska dhimi ma jiro waa la yidhaha suma ku socno waddamaan afrikaan ahayn baa ku jirta soomaaliya lafteedo gadar baa dabada kasoo reexaysay leeyihiin oo ku jirta meesha oo dagaalka tukaraqna sida wanaagsan ka muuqataa haddaad isbiga tihiin iyo anagu wadamada carabta walaalaan nahay khilaafkoodana dhexgeli mayno
mana eedeyno midna farta ku fiiqi mayno arrintu waa arrin soomaaliyeed soomaalida waan leeda miirsada 5 madaxweyne mid meesha doono u baxayo nasiib daro waxa weeye dadka adduunka lama arag intuu wadan dagaal galo waxaa ka taliya mustaqbalka dalka marka dambe dadka guuleysta US baa meesha ka baxday talidii US baa ka baxday aan ka xunnahay aad iyo aad baan uga xunnahay inay reerka USC guuleysatay inay meeshii ka baxdo oo dadkii laga guuleystay SSDFT farqiiqi oo ka talinaya maanta xamar waana aad baan uga xunnahay marka waxa weeyaan waxaan wax farta ku fiiqmayno xaaladdu waxay saaran tahay inta dalkan waa la haystaa UN baa xukunta UNICEF baa xukunta waa inaynu nirahaa hubkaasi hadduu gamca Soomaali weli ma heshin Soomaalidu ba isku dili doonta hore u soo baxdo hubkii la bixiyay hore waa tii lagu weeraray shabeeda hoose marka waa tii lagu weeraray reer inta ciidamada ka goosteen reerka ku duulay waa kuwii ka dhacday beledweyne inta ka goosteen ciidamada reer ku duulay tii un baa weeyay xaafnoona daadu baa lagu dagaalamay gaalkaamin baa lagu soo jeesay hubka maanta way helay abdi wali Soomaaliland ma soo gaaray laana laascaan dadkii lahaa baa joogay daafacay dadkii marka ma qabsan karaan laakiin aduun kula soo noqon doona wanaga baalkana ka qabanay maxaa lagu qabsiinay maxaa taangigii inkastoo inaan lahayd bali wiil handana de adu hubka isku fasaxay maaleen سؤالك بدينا وحوي بوتلاند يسمعلان أيامها دجال دجال يرقصوا عليان لا هذله ماشي نيك قبيل بيقول يا طلايا يا ريه بلا بيقول إلا ورد باه لقى صويع إلا كسمايا لقى صويع وقبيل دجال قبيل الدولة دوم يلا هذا الكلام وقبيل السجل هو هذا قعنته حلو قلت شران ويسوي حكي دجال قبيل بوكي لكن دجال سويش لكن توبي ولا حكمان بقال لكن أنت وحوي دو فرماتش أوي دو ما ممكن فرماتش سمي أورن ما ممكن ده يسمى سنجروي يبغى سمي أورن وحن حسن معنا الدولة ده فرماتشو ده حكمي سجان وده هذا السومالي خش علينا نسوي علينا هدي الله يراه ما تناقض دماته لكن وحوي ماشي وحنشر النظام بنشر إنه بابوك وخد إسلام قبل قاضي لقى كان محو هاي تانجي reerii baa laga reerii wuxuu ka qaabteen reerii iska haysan way maqan la ciido fiino ciidamada isku qabsan laba beelood isdiliya dagaalka soo gala idoo reera waa taas oo kale waa reera meesha ama meesha waa kor nuur baa laga baxay wax Puntland oo maamul jiray waa propaganda machine paper tiger gaado sa ما لا صعب واحد waxaan shacabka reer Soomaaliyeed u sheegnaa in hadda la qorsheeyay madaxweynuhu qorsheeyay in arinta ceel wafeen hadii Ilaahay yiraahdo la geli doono marka 6 maalmood shiwaal ila Soomaa marka ciido ka dambaysa in arintaas si mug loo geli doono hadii Ilaahay naftiina u daayo waxaana geli doonaa dad reer Soomaaliland oo isku dhafan oo loo dhan yahay oo ka kooban ay ku jiraan madaxweynayaashii hore Daariyaal waa jooga Xasan Ciise Jaamac waa jooga Cabdiraxmaan Cali waa jooga Cali Khaliif Dhega Weyne aniga insha Allah taala iyo culimadiin dadkii fiqh yaqaanay sida dhibaatooyinka marka dhacaan sida Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar insha Allah taala waxa lagu geliyaa dad miisaan leh ee geli doorey Soomaaliland oo cidna way xaneen guntana arrin waxaan oo marka hore baari doonaa maxaa keenaya dagaalka the root cause of the crisis waxaan waxa keenayo conflict waxa keenaya waa in helaa marka hore dhalinyaro badan baa baxday oo tagtay iyo abwahanin dhalinyaro oo soo siyaaratay oo iyaguna ka soo sameeyay study kuwaas dhawaan baan la kulmi doonaa insha Allah taala بالهكي أنتو كحد من هذا واحد جرا ما قصي علمي يسمونه بارنا إن شاء الله تعالى نبض وكل أمانة دونتا
waxaa dadka soo kickicinaya inoo soo weerarayaa waa beentan fakate leeyahay reer somaliland qabaa'il bay isku haystaanoo waxay ku jeedaan qabaa'ilkoodii iyo marka haddayna inagu aynu daciifno oo midnimadanu daciifto cid kas weyna haweysan karta markaa midnimadana hala ilaaliyo